waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhowaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka taariikhdu waa 13 bisha maarso sanadka 2024 waana 3 bisha barakeysan ee ramadaan. daawadayaal waxaan rabaa barnaamijkan inaan idinkula wadaago haddii allah awood leh uu raali ka noqdo wararkii ugu dambeeyay dagaalada ruushka iyo Ukraine. ciidamada Ukraine oo weeraro culus ku qaaday warshado muhiim ah oo saliidda sifeeya kuna yaala dalka Ruushka. Putin oo sheegay in aanu joojin doonin dagaalka culus ee uu ku hayo Ukraine, sidoo kalena ku dhawaaqay in nuclearka Ruushka uu aad uga sareeyo midka Mareykanka. warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo arrinta ku saabsan ayaan idin hayaa iyo qodobo kale oo ku saabsan isla dagaalada iyo duqeymaha soconaya ee dhanka bari ee Ukraine. mar kale soo dhawaada daawada, fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, muuqaalka share garee, aragtidaada qaybta hoose commentiga ku reebo. mahadsanid. barnaamijka ayaynu gudagalaynaa. ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay weeraro ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ka fuliyeen gobolada bari sida Sami iyo Donetsk ee dalka Ukraine, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ah. barasaabka deegaanka Vadim Filishink ayaa ku qoray Telegramka in Ruushka uu bam ku tuuray magaalada lagu magacaabo Myronord ee gobolka Donetsk, halkaas oo ay ku dhinteen sida uu tilmaamay 2 ruux, 5 kalena ay ku dhaawacmeen. maamulka gobolka Sami ayaa isna sheegay in uu jiro khasaare ka dhashay diyaarad aan duuliye lahayn oo ku dhacday guri dabaqa. maamulka ayaa sidoo kale tilmaamay in 30 guri oo ka kooban dhismo 5 dabaqa ay waxyeello soo gaartay, kuwaas oo 15 ka mid ah ay ugu horeen burbureen. saraakiisha ayaa sheegay in 10 qof laga soo badbaadiyay burburka dhismahaasi, waxaana 8 ka mid ah la tilmaamay in ay dhaawacmeen ama dhaawac uu soo gaaray. dhinaca kalena wararka ka imaanaya ee isla dhulka Ruushkana waxay sheegayaan ama dhanka Ruushka, Ukraine waxay weeraro drone ah ku qaadeen 3 warshadood oo saliidda lagu sifeeyo oo dhanka Ruushka ama Ruushka uu leeyahay. ciidamada ammaanka ee dalka Ukraine loona yaqaan SBU ayaa xalay iyo saakay waxa ay weeraro ku qaadeen 3 warshadood oo saliidda sifeeya kuna yaala Ryazan, Kastova iyo sidoo kale Krish. ila wareeda ka tirsan Ukraine oo aan la magacaabin ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in weerarkani uu qayb ka yahay istiraatiijiyadda lagu dhimayo awoodda dhaqaale ee Ruushka. marka la eego fiidiyowyada qadka tooska ah, cawaaqibta waxay ahaayeen kuwa muhiim ah. sidaasi waxaa sheegay mid ka mid ah ilaha la soo xiganayay, laakiin magacyadooda la qariyay. warka wuxuu intaasi ku daray in ciidamada difaaca ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada cirka Ruushka ku leeyihiin halka lagu magacaabo Potorolenovka iyo garoon diyaaradeed oo military oo ku yaala Voronezh. sida muuqata, Ukraine waxa ay xoojinaysaa weerarada culus ee ka dhanka ah kaabayaasha dhaqaale ee dalka Ruushka, waxaase taasi ay keeni kartaa in Ruushka isna uu sii xoojiyo weerarada ka dhanka ah wadanka Ukraine, iyadoo la ogyahay marka la isku dayo in la weeraro kaabayaasha muhiimka ah ee Ruushka in Ruushka uu ku bedelo boqolaal ka mid ah gantaaladiisa ama uu bartilmaameedsado xarumo waaweyn oo ilaa caasimadda wadanka Ukraine ah. sidoo kale, Ukraine waxay sheegtay in dagaalada ay sii wadi doonaan, isla markaana dagaalka uu noqon doono mid ay isku difaacayaan inta ciidamada wadanka Ruushka ay ka bixi doonaan dhulkooda, waa sida ay hadalka u dhigeen. halka madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin hadal uu jeediyayna uu ku sheegay in Ukraine ay kordhinayso weerarada si ay u farageliso doorashooyinka Ruushka. Putin ayaa sheegay in Ukraine ay xoojinayaan weerarada ay ku qaadayaan dhulka Ruushka si ay faragelin ugu sameeyaan doorashada madaxtinimo ee soo socota. toddobaadkan Ruushka ayaa la kulmay qaar ka mid ah weeraradii ugu waaweynaa ebed ee dalkiisa tan iyo markii Moscow ay ciidamo u dirtay Ukraine in ka badan 2 sano ka hor. waa wax fudud, dhammaan tani waxa ay ku dhacaysaa dhabarka dambe ee guuldarooyinka safka hore. ma aysan gaarin mid ka mid ah yoolalka ay dejiyeen sanadkii hore, ayuu Putin ku sheegay kadib waraysi uu kaga hadlayay weeraradan. shaki igama jiro in hadafka ugu weyn uu yahay haddii aan la carqaladeynin doorashada madaxtinimo ee Ruushka kadibna si uun loo faragelin habka caadiga ah, waxa ay keeni kartaa in mar walba Ukraine ay isku daydo iyo reer galbeedkaba inay ugu yaraan qalqalgeliyaan dadka codadkooda dhibanaya si ay u weeraraan meelaha codbixinta iyo weliba ugu yaraan inay sii sameeyaan waxyaaba keeni kara in qalqal lagu beero dhanka doorashooyinka.
doorashada madaxtinimo ee ruushka ayaa dhici doonta jimcaha ilaa axadda, waxaana lagu wadaa in Putin uu xilka sii hayo 6 sano oo kale. geesta kalena madaxweynaha ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay in saddex geesoodka nuclearkiisa ee ruushka isla markaana laga soo tuuro dhulka badda iyo hawada uu aad uga horumarsan yahay kan Mareykanka. waxa uu yiri saddex geesoodka yaga ee nuclearka waa uu ka casrisan yahay saddex geesoodka kale. annaga iyo Mareykanka kaliya ayaa dhab ahaantii haysana saddex geesoodka, wax badan oo kale ayaan halkan ku horumarnay. Mareykanka midkiisa waxa ka horumarsan kuwa yaga oo si weyn loo sii casriyeeyay, ayuu yiri madaxweynaha ruushka Vladimir Putin. Moscow ayaa loo maleynayaa inay haysato in ka badan 5,000 oo madaxyada nuclearka ah oo ah waliba keedka ugu weyn ee adduunka. intii lagu jiray dagaalkii 2 sano socday ee Ukraine, Kremlinka waxay ku faantay awoodeeda nuclearka, uga digtay wadamada reer galbeedka bishii hore inay jirto khatar dhab ah oo ah musiibo nuclear ah haddii ay sii kordhiyaan iska horimaadka isla markaana ay sii wadaan taageerada ay siinayaan ciidamada wadanka Ukraine. inkastoo la leeyahay hadda suuragal ma aha in la isku adeegsado nuclear marka la fiiriyo awoodda ruushka uu haysto iyo sida ay u dagaalamayaan ciidamadiisa. waa suuragal haddii awoodda ay ka xog badato, yacni dalal badan ay dagaalka soo galaan, in ruushka uu fasaxo nuclearkiisa kaliya Ukraine kuma ridi doono oo dalal badan oo Yurub ah ayay tani galaafan doontaa. ilaa Mareykanka ayaa la isla tegi doonaa mar haddiiba sheekadu nuclear ay gaarto. ruushka marar badan waxa uu ku hanjabay in nuclearka uu adeegsan doono, waana midda keentay in dalal badan oo reer galbeed ah ay cabsadaan oo ay dib u noqdaan, iskana ilaaliyaan inay ku degdegaan in ruushka dagaal toos ah lala galo. beddelkii taasi waxay sameeyeen inay taageero weyn siinayaan ciidamada Ukraine. inkastoo wixii ka dambeeyay markii uu bilowday howlgalkii Gaza 7 Oktoobar in reer galbeed oo dhan hubkoodii halkaasi u leexiyeen, Ukraine ay lumisay aagag hor leh, haddana weli reer galbeedka ma aysan iloobin Ukraine oo waa ay siiyaan taageero haba yaraatee amaba ha ka yaraatee wixii hore. sidoo kale bariga wadanka Ukraine waxaa ka soconaya dagaalo qaraar oo u dhexeeya ruushka iyo weliba ciidamada Ukraine. ciidamada Ukraine ayaa u muuqanaya kuwa si tartiib u luminaya aagag badan iyo deegaano hor leh. ciidamada wadanka ruushka waxay ku soo sikanayaan magaalooyin waaweyn oo maalinta ka dambeysa waxay gacanta ku dhigayaan deegaan, tuulo, magaalo iyo weliba aagag muhiim u ah Ukrainiyiintu. sida muuqata Ukraine waa ay sii lumin doontaa dhanka bari oo dhan haddii dagaalada ay sii socdaan. sidoo kale waxaa jiray dadaallo ku saabsan dalal reer galbeed ah oo ay ku doonayeen in ugu yaraan wax wada hadal ah lala galo dhanka ruushka, inkastoo Ukraine arrimahan ay iska diiday amaba ay iska indhatirayso. dhinaca kalena haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay ama maanta dhacay ee dagaalada ruushka iyo Ukraine, ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, 38 kalena waa ay ku dhaawacmeen oo 10 ka mid ah caruur ayay ahaayeen kadib markii gantaal uu ruushka riday oo ku dhacay 2 guri oo dabaqa oo ku yaala magaalada Kharkiv ee bartamaha dalka Ukraine. Moscow waxa ay sheegtay in ay soo riday 25 diyaaradood oo Ukraine ah oo dul hehaabayay 8 gobol oo qayb ka ahaa weeraradii lagu qaaday xarumaha tamarta oo ay ku jirto warshada labaad ee ugu weyn ee sifeynta saliidda ruushka. waxa uu sheeganayaa in uu maamulo tuulada Nevelsk ee gobolka Donetsk ee bariga Ukraine, isla markaana dagaal uu maanta ku qabsaday. Ra'iisul Wasaaraha Poland Donald Tusk ayaa waxa uu booqday Mareykanka, wuxuuna ku booriyay afhayeenka aqalka jamhuuriga Mike Johnson inuu si degdeg ah u meelmariyo sharciga caawinta militariga ee Ukraine. siyaasiyiinta Faransiiskana waxay u codeeyeen heshiis 10 sano ah oo dhanka ammaanka Ukraine oo ay ku jirto ballanqaad ah in ilaa 3 bilyan oo euro oo gargaar military ah loo diro Kiev sanadkan 2024. haddaba daawada maxay kula tahay aragtidaada? fadlan qaybta hoose kommentiga noogu reeb. mahadsanid. barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ka daawanaysan Markhaati TV waa naga intaas. barnaamijkan xigeentan ku kulmayno nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi